howlgalka qorsheysan ciidamada booliska magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dawlad goboleedka Galmudug ay ka sameeyeen xaafado ay ka kooban tahay magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa lagu soo qabtay waxyaabaha maanka dooriya ay dadkii ka ganacsanayay taliyaha ciidamada booliska magaalada Dhuusamareeb Cabdullaahi Xasan Macalin ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalka sidoo u dhacay isagoo sheegay in waxyaabaha maanka dooriya loo soo qabtay dad gaaraya ilaa 3 qof waxay ku guuleysteen ciidamada amnigu inay gacanta ku soo dhigaan qamrigan oo hadda hortiina yaala waxaan rabnaa qaabkii lagu soo qabtay ciidamada amnigu baaritaan ay sameeyeen guryaha ka sameeyeen waxay ku guuleysteen inay soo helaan qamrigan iyo dadkii waday oo runtii ahaa dad dhib ku ah ama lid ku ah amniga 3 qof oo kamid ah u xiran waxay hortagi doonaan sharciga mar dhow ayaa maxkamadda la horkeeni doonaa haddii alla idmo ciidamada amnigu runtii aad ayay u dhabar adeegeen waa mahadsan yihiin aad ayaan ugu mahadcelinayaa runtii shaqo fiican ay qabteen waxaan rabaa inaan mar kale aan hoosta ka xariiqo inaan loo baahnayn deegaankaan u baahnayn muqaddaraad iyo wax dhib ku ah deegaanka waxaan kaloo rabaa inaan goobtan uga faa'iideysto waqtigan uga faa'iideysto ciidamada amnigu howlgal sidii hore u wadeenba waxay laba jibaari doonaan shaqadii waxaa la sameyn doonaa dhammaan shaqadii la waday in la dadar geliyo waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka magaalada ciidamada fadhiyada oo wargelinay dharka cad wata oo qoryaha wata oo magaalada la dhex lugeynayana ayagana inaan uga digno muddo 24 saac gudahood qof kaste oo askari ah ama fadhi ka tirsan waxaan rabnaa markuu magaalada aadayo dhar caadi inuu ku yimaado haddii uu dan ka yeeshana oo soo qaato diriiskiisa si loo ogaado waxa uu yahay iyo meesha uu socdo gudoomiyaha caasimadda Macalin Nuur Cilmi Cabdullaahi ayaa goobjoog ka ahaa goobta fagaaraha ee lagu gubayay waxyaabaha maanka dooriya deegaan booliska iyo ciidanka NISA iyo saraakiishooda runtii waxay ku guuleysteen howlihii loo igmaday dhankii amniga iyo waxyaalaha noocaan oo kala ah oo ka hortagga u baahan sida ay ugu bareereen u soo qabteen waliba sida lama filaanka ah ayagoon suuqa sii gelin xogta rasmiga markay ka helaan xaajadooda hore ay u galaan waxaa jira dad lagu raad joogo sida saraakiishu ay noo sheegeen wuxuu yiri luqluqmarow laasim laamiga waa imaan waxaa ninkii soo qaada ma qarsoomahayo gaarigii soo qaadana ma qarsoomahayo waa wax shariicada islaamka xaraam ku ah annaguna insha Allah waa xarimnay in deegaanka la keeno ma ogolin mana ogolaan doono in lagu cabo ummadda lagu fasaadiyo ma aqbalayno waxaan leenahay talisku waa mahadsan yahay ciidanku waa mahadsan yahay dadka bulshada ah waxaan ugu baaqaynaa sidii amniga uga qayb qaadanayeen inay sii adkeeyaan waa markii ugu horeysay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dawlad goboleedka Galmudug lagu soo qabto waxyaabaha maanka dooriya Fartuun Maxamuud Axmed Fartuun Filsan Somali Cable TV Dhuusamareeb